بسم الله الحمد لله arintaasu sidaad carabka ugu dhufatay waa run gobolkaani ama statekan Hirshabeelle waxa mara webiga Shabeelle gobolkan waa gobol qani ah ama stateka baan iraado bar iyo beer iyo bad baa leh inkastoo baddu qalabka shaqo iyo khibradda shaqo ee dadku u leeyahay ay yar tahay waxa yar ka soo baxana suuq loo iibkeeyo aan lahayn iyo wadooyin waxa la mariyo hadaan u soo laabto wuxuu ahaa qudaarta waa la iibkeeyaa hadda oo koostada iyo yaanyada iyo xawar baa loo qaadaa iyo goboladan dhexe siiba gobolada dhexe waxa loo qaadaa yaanyada laakiin koostada hadda xamar aad baa loo qaadaa iyo bocorka hase yeeshee wax soo saarka beeraha ka imaanaya ee suuqa loo soo iibgeynayo ee suuqa imaanayo cambaha yaanyada iyo saytuunka iyo qaraha waxa haboonaa lahayd dadkeenu hadday gartaan inay samaystaan haddii qof yeelaba xataa awood aanay u lahayn inay isu tagaan ay samaystaan shirkado yaryar ama muxuu ahaa warshadaha yaryarka ee portaabilada oo aanu qarashku lacagtooda badnayn oo farsameeyo habeeyo cambaha iyo yaanyada iyo qaraha iyo saytuunku arinkaasu aad baa loogu baanaalaa wax badan horaan uga hadlay meelo badan ama media ama meel goobo badan oo la isugu yimaado Jowhar wax badan baan kaga hadlay wax mar kalena waa ku celinaya arinka waxa fiicnaan lahayd dadku waxay isku hawlaan wax aan wax badan ka soo bixin hadii warshadahaas yaryarka la abuuro beeraleydana wax tarbay u yeelanaysaa niyaday u dhisaysaa tacabkii waa lagu dhiiranaya shaqana waa shaqa abuurna way imaanaysaa warshadii yaryar warshadii dad baa ka shaqeynayo oo shaqa halka laga helaya taas marka waxay wax ka tari lahayd beeraleydana dhiirigelin bay u noqon lahayd yaanyada waxaan ognahay tanagii marbuu 5 kun tagay hoos ama la qubaya marne 750 soo joogaad arkaysaa waa dhaweed 500 baan ku arkay sidaa isii laga cambaha marba beerta laga yimaada oo suuq loo iibgeeyo la waayay hadii la warshadeeyo waxa soo dhan faa'iido badan baa ka imaan lahayd oo arintan hore carabka ugu dhuftay waa ka imaan lahayd oo dadku inay shaqo helaan ninka beeraleyda inuu tacabkii ku dhirso inuu nolol fiican helo ayaa waxa soo dhan baa imaanaya qaraha laftiisa waa la warshadeeyaa anigu Jowhar waxaan ku cunay ama ku cabay qara bowdar iyo camba bowdar oo cumaan lagu soo sameeyo lagu farsameeyo oo bowdar gurigeyda ku qastay hada annagana waa kana waa noo baxay asagoo waa kana waa noo wada muuqda dareeraha inuu ku yaala waa nasiib daraday kama tahay waa dad xisaab la'aan baanu soconaa Soomaali hadana waa iska soconaa waxaad arkaysaa waxaan lahayn baan ku haminayna mar walba inaan wax qabsanaba diyaar uma marka wartaa qudaartu waxaan dheelaa hadda waa la bilaabay Jowhar koosada in xamar la kariyo tacabkeeda koosada waxaan ku naqeena afgooy iyo janaale halaas xamar loo keeni jiray marka koosada qudheedu anaga waa nagu cusub tahay labadan sano u dambeysay ay koosada aad ugu baxdaa Jowhar loo iibgeeyo xamar waxaan rajaynayaa koosadaasu adeer qaadku waxaan ka keenaa Miro in Nairobi tabaara Miro sa Nairobi laga soo qaada koostada waxaan rajaynaynaa mustaqbalka in halkaan diyaarad looga qaado goboladan desert oo regionska state regionskaas in la geeyo ayaan ku rajaynayaa di Allah idmataasan anigu ayaan ku adkaysanaya balse waxaan soo jeedinayaa dadka Soomaaliyeed oo state-kan u dhashay gaar ahaan Jowhar ama Soomaalida kale ee danaynayso in dalkooda maal gashadaan ama dalku ha joogeen ama adduunyada kale ba ha jiraan dadkii kala farxaday ba la noqday waxaan dheeraa war dalku muxuu ahaa jaanisyo badan baa ka jiro fursado badan baa ka jiro oo muxuu ahaa ganacsi leh oo warshado yar leh oo wax laga qabsan karo adeer dalalkaad u farxateen idinkuba waad aragteen qabowba adeer sanadkii waxa laga 3 bilood wax la tabco baraf baa dilay barbaraay kala ku furan annaga waa kana hadda shaar baan iska wadanaa waxba muxuu ahaa